halkan nagala socotaan waa webka caalamiga ah ee waxbarashada maanta waa ciidul fitri iyo magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark. halka waxaa ku sugan dadweyne aad u tiro badan oo u soo salaadii ciidda isugu yimid hool ku yaala xaafadda Nooboqo. hoolkan la yiraahdo Nooboqo heelan ay waxay sameeyeen dadweyne aad u fara badan oo halkan ku tukanayay kula gudanayay salaatul ciidul fitri. waxaa muuqataa waxa laga baxay salaadii ciidda farxad iyo reereyn. waxaa nagala socotaan waa webka caalamiga ah ee waxbarashada iyo magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark. kusoo dhowow webka caalamiga ah ee waxbarashada news adigoo ka faa'iideysanaya kelmaddaada ka soo baxay salaadii ciidda halkan iyo ka salaamaysa. ciid mubaarak dhammaantiinba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaanba, waalidiintii dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak. aad baad umahadsantahay. ismaaciil kusoo dhowow waxbarashada news adigoo ka faa'iideysanaya kelmaddaada halkan ka salaamaysa. yaad ka salaamaysaa halkaadoo kelmadaad ka waxaan ka salaamayaa dad dhammaan dadkii muslimka ahaa maasha Allah meel kasta ay joogaan maasha Allah. cabdaadan kusoo dhowow waxbarashada news adigoo ka faa'iideysanaya kelmadaada yaad salaamaysaa maanta salaada ciidda yaad halka ka salaamaysaa. والله مسلم قدام السلام عشان غير كوبنهاجن aad halka salaamaysaa aad iyo aad baad umahadsantahay. cabdicasiis kusoo dhowow webka caalamiga waxbarashada news adigoo ka faa'iideysanaya kelmaddaada kana soo baxay salaadii ciidul fadriga yaad ka salaamaysaa. كل عام وأنت عيد كولد يا حاسكيga معدقن ما شاء الله يا ولادي ما شاء الله يفهم ولا ما شاء الله أضبط ما تصير كسر دو waxbarashada news adigoo ka faa'iideysanaya kelmaddaada halka yaad ka salaamaysaa kana soo baxay salaatul ciidul fitri iyo magaalada Copenhagen dan meel alaale meel ay joogaan caalam islaam sanadkiisa ilaahay barwaaqo iyo bashbash ay nagu gaarsiin ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimkana ilaahay qulubtooda isu soo jeedin dhibaatada islaamka haysta ilaahay ka qaado dulliga ilaahay ka qaado amiin ilaahay niyadooda iyo qalbigooda ilaahay Soomaaliyeed isu furo amiin sidaas ummadda asalaantaas ummadda gaarsiinaya hal iga gaarsiin. jazakallahu khayr. aad iyo aad baad mahadsantahay. halkaan ku sugannahay waa magaalada Copenhagen iyo hoolkii lagu gutay salaatul ciidul fitri oo la yiraahdo xaafad ku yaala la yiraahdo Nooboqo. hoolkan oo la yiraahdo Nooboqo heelan waxay isugu yimid dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo ku gutay salaatul ciidul fitri iyo magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark. kusoo dhowow waxbarashada news. mahadsantahay hoonkii belna iyo dhammaan waxbarashada news ummadda muslimiinta meel kasta joogaan ciid mubaarak ayaan leeyahay. ciiddeeda caafimaad iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo. ugu horreyntii waxaan salaamayaa xaaskeyga iyo carruurtayda iyo carruurtooda dhammaan asxaabta yani aan leeyahay oo dhan halkan waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo ummadda muslimiinta oo dhan ciiddeeda farxad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ku gaar aan leeyahay.
هون كيبل أد بمهنسي يعني وحسن شيك نيوز وحسن شيك وحن سلام يا عرورتي ذا ugu horeyntii maxamed iyo labadiisa caruur ah miski iyo shanteeda caruur ah igraan iyo shanteeda caruurta iyo odageeda xaaskayga deeqaal cabdille wiilkayga kale muxuu ahaa saadaam sakariye muxuu ahaa saabir siid cali dhammaan maxamed oo aan awoow ay hadda ila socdo dhammaan caruurta awoowaha u ahay muxuu ahaa ummadda muslimiinta waxaa kaloo salaamaya halkan aan jeclahay inaan salaan ugu gudbiyo gobolka hiiraan yani axmed aadan xasan iyo caruurtiisa ibraahim bey iyo caruurtiisa dhammaan reer cali cabdille dhammaan reer xuseen ibraahim anigoo ah faarax malmalayste halkan waxaan salaan diiri ugu dirayaa dhammaan inta muuqayga iyo maqalkayga taqaana abuukar maxamed daahiye ama reer maxamed daahiye dhammaan intaba waxaan maaragtay halkan aan ka salaamayaa ummaddaas muslimiinta oo dhan ciid mubaarak aad mahadsantahay kullu caam wa anta bilkhayr adigoo ka faa'iidaystay ku soo dhawo waxsan sheeg news iyo magaalada Copenhagen waxaan u malaynayaa waxaad soo gudatay salaatul ciid ulfitri halka yaad ka salaamaysaa alxamdulillah shukran bil caalamiin halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimka ee maanta farxadan ku ciidaya gaar ahaan ehelkayga oo jooga adduunka darafkiisa Soomaaliya ama Somaliland London Mareykanka Sweden عيد وناكسن أيام لا يا والسلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير آديات ضياض ما تنتهي آديات ضد ما تنتهي السلام عليكم الحمد لله إني واحد سوق ذا صلاة العيد الفطري ما شاء الله كسول له وحسن شق نيوز ما شاء الله أدو كفاية السنة كلمة هذا هل كيف كسلام يسا وحق سلام يا باشا عالم كإسلام أولا ملك استيجوجان دهان خاصة هان ومد الصوماليات ملك استيجوجان وحنا عيد وناكسن وعيدة aad ضمت halkaan ku sugannahay waa magaalada Copenhagen iyo hoolkii lagu gutay salaatul ciid ulfitri halka waxa ka muuqda dad fara badan oo aad farxad ay ugu muuqato iyaga oo soo gutay salaadii ciida salaatul ciid ulfitri Cabdulla ku soo dhawow wax sheegnays adoo ka faa'iideysanaya kelmadaada halkeed ka salaamaysaa wax sheegnays ku soo dhawow ya salaamaysaa dadka muslimiinta dhamaanaya salaamaya ehelkii qaraabadii ay dhamaanta magacayga muuqay qaranaysa aad dad ma tahay ku soo dhawow السلام عليكم webka caalamiga wax soo sheegnayo salka ka salaamaysaa adoo ka faa'iideysanaya kelmadaada ما شاء الله خير يا عام وانتم بخير ان شاء الله خير بكثير يا شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ku soo dhawow wax sheegnayo adoo ka faa'iideysanaya kelmadaada maanta halkeed ka salaamaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka waxa ka salaamaya ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhair leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u ducaynayaa ummadda islaamka ah ee lagu xasuuqayo Falastiin waxa aan gaar ahaan u sii salaamaya dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan afka Soomaaliya ku hadla waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhair جزاك الله خير iyadu mahadsantahay halkaan ku sugannahay waa hoolkii lagu gutay salaatul ciid ulfitri magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark hoolkan oo la yiraahdo Noorboqod yeelan kuna yaala xaafadda Noorboqod waxa aad nagala socotaan waa webka caalamiga ah ee waxsan sheeg news anaguna waxaan idin leenahay haddaan nahay bahda waxsan sheeg news ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته